gudoomiyaha gobolka saaxil iyo duqa magaalada berbera ayaa maanta tababar u soo xidhay ilaa 20 xubnood oo ka kala socday hay'adaha alaamaha dawladda tababarkaasi oo soconayay muddo 7 maalmood isla markaasina ay wada jir soo qabanqaabiyeen wasaaradda qorsheynta qaranka iyo hay'adda GIZ ayaa lagu qaadanayay diris loo xidhay tirakoobka ama statistics-ka hadalada halkaasi ay ka soo jeedeen mas'uuliyiinta gobolka iyo degmada berbera ayaa waxa ay ka warrameen tababarkaasi iyo faa'iidada uu leeyahay ka qaybgalayaasha iyo sida loogu baahan yahay in lagu dabaqo hawlsocodsiinta hay'adaha alaamaha dawladda ee ka qaybgalay tababarkaasi isuduwaha wasaaradda qorsheynta qaranka Cabdille Ismaaciil Yaasiin ayaa isaguna faahfaahin ka bixiyay tababarkaasi iyo durista lagu qaadanayay waxaana uu ka qaybgalayaasha u soo jeediyay in waxyaabaha halkaasi ay ka faa'iideysteen ay ku dabaqaan hawl maalmeedkooda dhinaca kalena gudoomiye ku-xigeenka gobolka saaxil iyo xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada degmada berbera ayaa habeenkii xaaladka ka qayb galay munaasabad lagu soo bandhigay bog cusub oo ka hadlaya arrimaha deegaanka buugaasi oo la sheegay inuu qoray Ahmed Ibrahim Cawaale ayaa waxa soo bandhigay naadiga akhriska ee loo yaqaan Berbera Readers Club gudoomiyaha ururkaasi Berbera Readers Club Maxamed Maxamuud Jaamac ayaa sheegay buugaasi muhiimadda uu xambaarsan yahay isagoo sheegay markaasina ku amaanay banka qoray buugaasi ee ka hadlaya arrimaha deegaanka kuna tilmaamay inay tahay talaabo ku dayasho mudan la dirisa wax akhriska iyo qoraalka oo faa'iidada ay leeyihiin ay ka wada dheregsanahay muddadii uu jiray naadigu wuxuu soo bandhigay buug fara badan oo cilmi ah oo badan buugta qorayaasha Soomaalidu muddadii uu jiray naadigu wuxuu muddo dheer ku taamayay sidii ay magaalada Berbera ay u leedahay hooy ay wax ku sidoo kalena gudoomiye ku-xigeenka gobolka saaxil Khadar Cali Cilmi ayaa isaguna hadal munaasabadii buugaasi lagu soo bandhigay ka jeediyay waxa uu si weyn u soo dhaweeyay qoraalka buugaasi ee ka hadlaya arrimaha deegaanka isagoo sidoo kalena ka warramay ilaalinta deegaanka iyo muhiimadda ay u leedahay guud ahaan dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo sida loogu baahan yahay shicibka dawladda in la wada dhowro oo meel looga soo wada jeedo kale halkaasi hadal la qaybsado oo baloodaystay marka ninka carabka markuu ka yaabay sida loo xanaaniyay looga shadeeyay waa bil goor 100,000 oo dollar deegaanka ugu deeqay gacan libaax kala ku dhacay guurguurkii waayo dadku waxay noqdeen dad maaragtay nagaado oo dhulkii ku nagaado bay noqdeen halkii la oran jiray berigii hore waa soo ceel fadhiisanayaan oo ma garanaysaa maaragtay dhulka hawdka oo kale waxaa la daaqi jiray marka ay biyo jiraan marka isbedelkaas wuxuu abuuray maaragtay in maaragtay dadku ay deegaan ay noqdaan haddii deegaan la noqdana waxa weeye oo guurguurkii meesha ka baxo waxay imanaysaa dhulku inuu xaalufo waxaa ka soo jeediyay xubno ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada berbera iyo isduwaha wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee gobolka saaxil oo dhammaantoodba ka warramay deegaanka iyo ilaalintiisa iyo muhiimadda ay leedahay cabdisalaam xariir TV-ga qaranka berbera